السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن oo wanaagsan Ramadaanul Kariim qodobada warka maanta aan idinku haynana waxa kamida dawladda Turkiga oo dhistay isbitaal cusub Haftar oo sheegay inuu xoojinayo dagaalka uu kula jiro dawladda Liibiya wadanka Brazil oo ugu dhintay dad fara badan xanuunka COVID-19 2.4 milyan oo ku shaqo beelay wadanka Mareykanka hay-adda WHO lagu eedeeyay inay ka gaabisay doorka ay ku lahayd xanuunka COVID-19 fididiisa duufaanta cyclone ayaa dad badan ku dishay wadanka India iyo Bangladesh intaas waa qodobadii warka ugu doorka roona ku soo dhawaada warkaas oo fidsan Initiating system 1 System 1 loaded. xukuumadda hogaamiye madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa lagu amaanay intii ay talada wadanka haysay inay gaadhay horumar xagga dhaqaalaha, xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka intaba. magaalada Basaksehir iyo magaalada Sakuri ee wadankaasi Turkiga ayaa laga furay laba cusbitaal oo casri ah kuwaas oo ka qayb ah dadaalka ay wado xukuumadda Turkiga taas ay ku tayeynayso xagga caafimaadka. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan intii uu xilka hayay wuxuu ku ammaanay yahay inuu wadanka gaarsiiyay xagga dhaqaalaha kaalinta 16aad xagga awoodna uu gaarsiiyay wadanka labaad marka loo eego gaashaanbuurta NATO. sargaalka goosadka ee Haftar xogaga xukumo ayaa sheegay inay sii wadayaan duqeynta ay ku hayaan ee sharciga ah dawladda Liibiya haddii uu Turkigu joojin waayo sii wadidiisa weerarada uu ku hayo wadaadkan goosadka iyo xogagiisa. dawladda Liibiya ciidamada ka amar qaata ayaa qabsaday magaalada Al-Asaba kaas oo ay ku xooganayeen xogaga Haftar. wadanka Brazil xanuunka COVID-19 waxa ugu dhintay 1900 oo qof. wadanka Brazil wuxuu ka mid yahay wadamada ay ku xoogan yahay iminka xanuunka COVID-19 2.4 milyan ayaa ku shaqo beelay wadanka Mareykanka kadib markii uu si xun u saameeyay xanuunka COVID-19. xanuunka COVID-19 ayaa si xun u saameeyay wadanka Mareykanka wuxuuna ka mid yahay wadamada uu si xun u saameeyay. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku talisay inay bulshada caalamka ka digtoonaadaan xanuunka COVID-19. wadamo badan oo horeeyo wadanka Mareykanka iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hay-adda WHO ku eedeeyay inay ka gaabisay doorka ay ku lahayd xanuunka COVID-19 xanibaadiisa ama xal u helidda ama talaalo soo saaridda xanuunka COVID-19. duufaanta cyclone taas oo ka dhacda koonfurta India ayaa wadanka India iyo wadanka Bangladesh waxay ku dishay 88 qof. duufaantan oo ahayd mid qabow misana ahayd mid xoog u socota ayaa si xun u saameysay labada wadan. daawadayaal wixii war naga soo gaaray dunida iyo daafaha caalamka waa naga intaan kan kulamida ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa Ramadaanul Kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Initiating system 1 System 1 loaded.